Qatar iyo Masar ayaa hormuud ka ah dadaalo cusub oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojin oo Gaza ka dhacdo, iyagoo soo bandhigay soo jeedin cusub oo ay Xamaas si waafi ah uga jawaabtay isla markaana aqbashay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in soo jeedintan ay ku dhawaad la mid tahay tii ay hore u soo jeediyay ergeyga Mareykanka ee Bariga Dhexe Steve Witkoff dhamaadkii bishii Maarso. Waxaa ku jira xabad joojin ku meel gaar ah oo 60 maalmood soconaysa. Muddadaasi waxaa dhici doona iswadaarsi maxaabiista iyo sidoo kale la haystayaasha gacanta ugu jira Xamaas iyo Israel intaba in xorriyadooda ay helaan. Ciidamada Israel ee Gaza ku sugan in ay ka baxaan furimaha dagaalka, sidoo kale wadada loo xaaro caawimaadda iyo gurmadka degdega ee la gaarsiinayo reer Gaza. Faahfaahinta dhabta ee ka duwan soo jeedintii hore oo fashilantay weli lama caddayn. Dowladda Israel weli si rasmi ah ugama jawaabin, balse warbaahinta Israel oo soo xiganaysa mas'uuliyiin sare ayaa sheegaysa in dowladda aysan ku qanacsaneyn iswadaarsi kooban oo maxaabiis iyo la haystayaal, isla markaana laga yaabo in hadda ay ku adkaysato in la sii daayo dhammaan kontonka la hayste ee Israel ku jira qayb kasta oo heshiiskaasi. Isla arrimahan Gaza, in ka badan 700 oo madaxda gaar ahaan ganacsatada waaweyn ee reer UK oo ku baaqay in dowladda ay joojiso falalka xasuuqa ee ka socda Gaza. In ka badan 700 oo ganacsato waaweyn, aasaasyaal iyo sidoo kale khabiiro kala duwan oo reer boqortooyada midowgaasi ka mid ah ayaa saxiixay warqad furan oo ku baaqaysa in dowladda UK si degdeg ah tallaabo uga qaado sidii loo joojin lahaa xasuuqa dheeraadka ee ka socda Gaza, isla markaana la ilaaliyo sharciga caalamiga. Hogaamiyaashan ganacsatada ee daladaasi ku bahoobay ayaa ku adkeeyay dowladda inay joojiso dhammaan rukhsadaha dhoofinta badeecadaha laga yaabo in si toos ah ama si dadbanba loola xiriirinayo howlgallada militari ee Gaza, iyadoo aan wax markaasi ka reeban jirin. Waxaa sidoo kale ku baaqeen in la ballaariyo cunaqabataynta maaliyadeed iyo kormeerka maalgelineed shirkadaha ku lug yeelan kara ku xadgudubka sharciga caalamiga. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dhammaan dagaalkaasi Gaza ayaa sii xoogeysanaya. Wixii ku soo kordho wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan. Markana haddii aynu eegno dhanka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka, qorshayaasha diblomaasiyadeed lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine oo sii xoogeysanaya, iyadoo dadaaladan lagu soo afjarayo dagaalka qaraar ee Ukraine ka socda magaalada Washington, haddana dagaalka dhulka ayaa weli kasii soconaya gudaha Ukraine, sida uu sheegay ciidamada cirka oo sheegay in Ruushka xalay weerar ay ku qaadeen dalkaas Ukraine iyagoo adeegsanaya 270 diyaaradood oo aan duuliye lahayn iyo 10 gantaal. Wasaaradda tamarta Ukraine ayaa sheegtay in Ruushka uu beegsaday xarumaha tamarta ee gobolka dhexe ee Poltava, halkaasi oo ay ku taalo warshadda sifeynta shidaalka ee kaliya ee Ukraine, taasi oo sababtay dab weyn oo salaasadii halkaasi ka dhacay. Weerarkaasi waxa uu ahaa kii ugu weynaa bishan, wuxuuna yimid maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku casuumay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo madaxda reer Yurub aqalka cad si ay uga hadlaan dadaalada nabadeed. Ruushka iyo Ukraine waxay sidoo kale sheegeen inay isweydaarsadeen meedadka askartooda ku dhintay dagaalka salaasadii, taasi oo qayb ka ahayd heshiisyada lagu gaaray wadahadallada nabadeed ee horey uga dhacay Istanbul, Turkiga. Xafiiska Ukraine iyo iskudubidda qodobada la xiriira maxaabiista dagaalka ayaa xaqiijiyay inay heleen meydadka 1,000 askari oo ciidan, iyagoo u mahadceliyay guddiga caalamiga ee Lanqeyrta Cas oo ka qayb qaatay isdhaafsiga meydadkaasi. Moscow iyo Kiev waxay Istanbul ku yeesheen 3 wareeg wadahadallo 16 Maajo ilaa 2 Juun iyo 23 bishii Luulyo aynu kasoo gudubnay, kuwa oo horseeday isdhaafsi weyn oo maxaabiis, balse aan wax badan ka dhalan marka laga reebo qoraallo qabyo ah oo qeexaya mowqifka labada dhinac, kuwa oo midna aan u aqbalin kan kale. Dadaalada nabadda ayaa heer sare gaaray kadib shirkii toddobaadkii hore ku dhexmaray Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin gobolka Alaska, iyo shirka xigay ee Isniintii lagu qabtay Washington oo dhexmaray Trump, Zelensky iyo sidoo kale madaxda Yurub. Qodobada gaar ahaan ugu adag ee wadahadalladan ayaa la sheegay inay yihiin suurtagalka iswadaarsiga dhulalka iyo sidoo kale damaanadaha amni ee Ukraine.
Ukraine iyo xulafadeeda Yurub ayaa marar badan ku celceliyay baaqa in la helo xabad joojin inta lagu guda jiro wadahadallada nabadda. Putin se arrintaasi waa uu ka gaabsaday maadaama ciidamadiisu ay si tartiib ah horay ugu socdaan gudaha Ukraine. Waxa uu leeyahay dhiirigelin yar oo uu ku hakiyo dhaqdhaqaaqooda ayaa halkaasi ka jirta. Ka hor intaanu la kulmin hogaamiyaha Ruushka toddobaadkii hore, Trump ayaa ku hanjabay Ruushka in ay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii uusan aqbalin xabad joojin. Hase yeeshee, kulanka kadib wuxuu ka tanaasulay dalabkaasi isagoo sheegay in waxa ugu fiican uu yahay in xoogga la saaro heshiis nabadeed oo dhammaystiran sida Putin horey ugu riixayay. Si Ukraine ay ugu raacdo heshiis nabadeed oo lala galo Ruushka, waxay dalbanaysaa dammaanad ah inay awood u yeelato inay ka hortagto weerarada mustaqbalka oo ka imaan kara Kremlin-ka, gaar ahaan Ruushka. Taasi oo micnaheedu yahay madaxweynaha Zelensky waa in Ukraine ay hesho ciidan xoog leh oo hub iyo tababar ka helo xulafada reer galbeedka. Waxaa suuragal in dammaanadaasi ay u ekaato tan ku jirta qodobka 5 ee NATO oo sheegaya in weerar haddii lagu qaado hal dal oo xubin ka ah ururka NATO loo arko weerar lagu qaado dhammaan xulafada, laakiin weli lama caddeyn sida arrintaasi ay u shaqayn lahayd. Sidoo kale, xulafada Yurub ee Kiev waxay doonayaan in la dhiso ciidan taageeri kara heshiis nabadeed oo Ukraine ka dhaca. Waxaa la yiraahdaa Coalition of the Willings. 30 dal oo ay ku jiraan wadamada Yurub, Japan iyo Australia ayaa saxiixaya taageerada hindisahan, inkastoo weli aan la go'aamin kaalinta Mareykanka uu ku yeelan karo ciidankaasi. Hogaamiyaasha Yurub oo ka cabsi qaba in damaca dhuleed ee Moscow aanu ku ekayn Ukraine waxay doonayaan in la xaqiijiyo in awoodda militari ee Mareykanka qayb ka noqon karto qorshahan. Trump waxa uu sheegayaa inuu gacan ka geysan doono ilaalinta, balse waxa uu ka gaabsaday ballanqaadkii in ciidan Mareykanka dhulka la keeno, isagoo halkaasi ballanqaaday arrimo kala duwan. Ruushka ayaa si isdaba joog ah u diiday fikradda ciidan NATO oo Ukraine la geeyo, iyagoo ku adkaystay in aysan aqbalaynin. Ra'iisul wasaaraha UK iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si wadajir ah u gudoomiyay shir khadka internetka oo ay yeesheen, kaasi oo ku saabsanaa dalalka ku jira isbahaysiga. Marka mas'uuliyiinta faahfaahin ay ka bixiyeen soo jeedinadan, ayuu xogayaha guud ee NATO waxa uu sheegay in shir muuqaal ah lagu qaban doono oo ay ka qaybgeli doonaan Trump iyo hogaamiyaasha Yurub. Zelensky iyo hogaamiyaasha Yurub waxay sheegeen in Putin uu dalbaday in Ukraine ay ka tanaasusho gobolka Donbas oo ka kooban Donetsk iyo Luhansk oo ah xarun warshadeed oo ku taala bariga Ukraine, halkaasi oo dagaalo culus ay ka dhaceen. Hase yeeshee, ciidamada Ruushka aysan weli si buuxda u qabsan. Ruushka weli kama dhigin ballanqaad cad kulan dhex mara Putin iyo Zelensky. Kulanka uu Trump ku yeeshay wadahadaladii Isniintii, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa Talaadadii sheegay in Moscow ay markaasi diidin qaab kasta oo laga wada hadlayo geedi socodka nabadeed ee Ukraine, balse kulanka madaxweynayaasha waxa uu sheegay inuu u baahan yahay diyaargarow aad u qoto dheer. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa qodobada iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Iminka isha aynu soo marinay waxay kusoo kordha wararkayga dambe eed ku maqli doontaan.